السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارك سودوادا عشركي لباد موجودك شناد كورسدنا فوكابولريغا يعني عشر كان وحو كسابسن yahay placement and style in linking words hore waxaan uga soo hadalnay cohesive classeska iyo linking wordska waxaan soo sheegnay waxa weeye categorieskooda sida kuwa marka wax la isku darayo la isticmaalo sababta samariga qaybahaas oo dhan baan kasoo hadalnay qaybtaani marka waxay ku saabsan tahay placement and style in link words qaabka loo dhigayo marka la isticmaalayo link wordska iyo maxaa la yidhaahdaa halkee ma bilowga miyaa la dhigayaa jumlada ma dhexda iyo dhammaadka iyo mid kasta marka la dhigayo punctuationska ruleska qaabka loo kala isticmaalayo ayaan cashirkan aad ugu faahfaahin doonaa halkan marka haddaad taabatid oo waxaa kusoo degaya faylkani xaggan ii yaala marka halkan haddaan imaadno cashirkan dhammaadkiisa ardayga waxaa laga doonayaa linki wordska inuu isticmaali karo bilowga dhexda iyo waxa weeye dhammaadka sentenceka marka waa sharxi doonaa farqiga ay ku kala duwan yihiin marka uu bilowga yaalo markuu dhexda yaalo iyo markuu dhammaadka yaalo sidoo kale punctuationska oo ah maxaa la yidhahdaa calaamadihii la isticmaalayay tusaale coma hakad kolmo aduu waa garanaysaan astaamihii qaabka maaragtay loo isticmaalayo sidoo kale inuu kala saari karo formalka iyo informalka linki wordska inuu isticmaali karo short expressionska iyo long expressionska si maaragtay saameyn leh haddaan marka ku bilowno placement matters marka la dhigayo linking wordka waxa weeye bilowga iyo marka la dhigayo dhammaadka marka la dhigayo dhexda why it matters sababtu waxa weeyaan haddii tusaalahaan linking wordka u isticmaashid bilowga sentenceka macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa emphasize ama inaad wixii adkeynaysid oo marka waxaad sheegaysaa rabtid dadka in maaragtay attentionkoodu inuu meesha aad u fiiriyo sidoo kale marka loo fiiriyo degree of maxaa la yidhahda emphasizeka tusaalehaan haddaad dhigtid bilowga macnaheedu aad ka hadlaysid contrast macnaheedu waxay ka dhigan tahay qaybtaa dambe ayaa aad loogu badan yahay tusaale hadda halkan waxaa ku yaala however many disagree si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa arrintaa kasoo horjeensaday oo maaragtay aan ku raacin marka waxay ka dhigan tahay dadka way ka badan yihiin dadka maaragtay qaybta agree oo raacday ideadaas dadka raacsan ama dadka taageersan waxa ka badan dadka aan taageersanayn marka degree of emphasis markuu bilowga yaalo aad buu xoogan yahay markuu yaalo miralka waa iska aadna uma xoogana aadna maaragtay soft uma aha laakiin macnaha waxay ka dhigan tahay adigu waa miral just ereygaasaynu ku baadkeenana dhammaadka markuu yaalo just waa softy magarata waa kind of conversational sidaan tusaalayaasha ku arki doono that's why it matters marka haddii oo bilowga yaalo oo aad ka hadlaysid hadda tusaale contrast oo kale ama degree of something aad ka hadlaysid bilowga aad buu xoogan yahay dhexda oo iska dhexdhexaad dhammaadkana waa soft oo wax maarag waa conversational okay beginning of the sentence often used for transitions waxaa loo isticmaalaa transitions in la isku xiro furthermore education benefits society si kastaba ha ahaatee waxbarashadu waxay u faa'iideysaa dadka marka waxaad ka dareemaysaa halkaas dabcan maxaa la yidhaahdaa inay waxbarashadu faa'iido badan leedahay marka laga hadlayo jumladaas dhexda marka waxaad kaloo muhiim ah inaad ogaatid hadday halkaan ay ahayd inaan kugu sheego komadaan aa ujeedid waxay samaynaysaa macno weyn komadaani markaad halkaan dhigtid waa waxa samaynaya separationka marka komadu way ku xigtaa
linking wordka marka la joogo bilowga dhexda haddii la joogona labada dhinac ayay ka xigtaa dhamaadkana way ka horeysaa komadu linking wordka marka waa inaad saa ula socotid hadda marka komada halkan waa tan taalla labada dhinac ayay ka xigtaa kan middleka ah hadda surrounded by commas komadu waa labada dhinac ayay ka xigtaa marka middleka yaalo education however is still underfunded macnaha waxbarashadu weli wax fan ah looma hayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay there's something macnaha fan baa jira xoogaa fana waa la hayaa laakiin fankaasi maaha fan ku filan oo kale macnaha waa underfunded maadaama hadda middleka aanu isticmaalnay sidaas ayay muujinaysaa dhammaadka less common macnaha mid aada loo isticmaalo maaha laakiin way dhacdaa sometimes tusaalen she studied hard aad bay wax u baratay gabadhaasi si kastaba ha ahaatee gabadhii way dhacday macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan dhammaadka ayay taallaa marka wax macno saas si weyn tusaalaan koorsadaas laga yaaba inaysan muhiim ahayn oo kale oo mid maaragtay credit aan maaragtay lagu qiimeynin oo kale inay ahayd ayaa laga yaabaa koorso aan major ahayn oo kale ayaa loo isticmaali karaa maadaama dhammaadka la dhigay oo less common ay tahay digrigeeduna uu yahay soft aysan wax adag ahayn aad looma adkayn punctuation ruleska marka komada waxaa la dhigayaa after the linking word ayaa la dhigayaa marka beginning uu yahay middleka markuu yaal waa labada dhinac less common weeye saan sheegnay qaybta saddexaad laakiin waxay inta badan ka horeysaa linking wordka wrong punctuation macnaheedu waxa weeye wrong grammatical error grammarka macnaha naxwaha jumladaasi wuu khaldan yahay ama waxbaa ka khaldan haddii punctuationsku uusan saxnayn marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay formal iyo marka informalka qaybta intaanan usii gudbin halkan marka hadhow aan tagno qaybta father resourceska waa intii hadda aan soo sharaxnay oo faahfaahsan tusaalaan beginning oo kale hadda waatan jumladan ayuu ku siinayaa however many students prefer online learning si kastaba ha ahaatee arday badan ayaa door biday online learning macnaheedu waxay tahay ardayda online learningka danaynaysa ayaa ka badan ardayda in person classka danaynaysa many students however prefer online learning tanna waxay ka dhigan tahay labada team wax badan isma dheeran many students prefer online learning however tan waxay ka dhigan tahay kuwa in person classka raba ayaa ka badan kuwa online learning ka raba marka changes emphasize baa jira saalka ugu jeeday waana inaad maaragtay ku xisaabtid punctuationka markasta waa ina punctuation ruleska halkan baa isagana kana kusii faahfaahinay formalkii iyo informalkii halkan waxaan uga socdaa linkigan wuxuuna geeyay halkan iska cashirkii hore aan soo sharaxnay waa qayb ka mid ay maaragtay ku xiran tahay laakiin waxaan rabaa inaan kutuso waxyaabaha halkan maxaan ka faa'idi karnaa qaybta hadda aan sharaxayay baan tegaynaa sorry aan noqdo sorry waxaan raacnay linkiga aan raacnay baa khaldanaa linkigaan rabay inaan tusaalayaasheedan ka tuso waa halkan oo ka hadlaya ruleska iyo tusaalayaal linking wordska ah punctuationka iyo waxyaabahaas si halkan uga jeedaan linking wordska transition wordsna waa loo yaqaan connectorsna waa loo yaqaan waxay isku xiraan ideaska waxayna maaragtay sentenceka ka dhigayaan kuwa coherent ah oo isku
xiran marka ma rabo waqti badan inaan ka lumiyo. Een, function of linking words. Imagine you are telling a story or explaining something without using linking words. It would sound choppy and disconnected. Waxay noqonaysaa wax macna maaragtay aan samaynayn oo aan isku xirnayn. Tusaalahaanta I wake up, I went to the kitchen, I made breakfast, I ate it. Macnaha waxa ka maqan linking wordskii. Xataa waa soo kacay, jikadaan aaday, waan quraac ayaan samaystay, waan cunay quraacdii. Ya, hadda Ingiriiska marka la joogo waa maxaa la yidhahdaa aad baysan macno soo celin, laakiin marka af Soomaaligan oo kale maybe af Soomaaliga dhawrta isku xirka oo kale aad ma isticmaalo. Haddaan dhaho tusaale ahaan waan soo kacay kadib jikada ayaan aaday, kadib quraacdii ayaan sameeyey, ugu dambeyntiina quraacdii ayaan cunay. Xataa af Soomaaliga waxoogaa saasaa qurux badan, laakiin Ingiriiska waxay samaynaysaa macno weyn. Waana farqiga u dhexeeya luqadaha. Waa ka marka ciwaanka aan rabnay waa placement of linking words and punctuation and punctuating them. Waxaa la yidhi starting a sentence use a comma after a linking word. Haddaad jumlada bilaabaysid waxaa isticmaashaa linking wordka kadib comma sida halkan oo kale. However, I decided to give it a try. Waxaan go'aansaday inaan isku dayo. Middle of the sentence na kuwan already waan soo sharaxnay, ma doonayo inaan ku noqdo. Halkan waxa weeye soo maaragtid. Let's put linking words into action with more examples. Notice how they help the follow of each sentence. So now tana day soo qaadanayna. She was tired because she had worked all day. Way daashay sababtoo ah maalintii oo dhan ayay shaqaynaysay. Si kastaba ha ahaatee, she still managed to cook dinner. Qoftaasi waa qof khatar weeye. Si kastaba ha ahaatee waxay ku guuleysatay inay cunto kariso oo casho reerka ay u samayso iyadoo maanta dhan shaqaynaysa. I went to the store and bought some vegetables. In addition, I picked up some fruit. Waxay aaday storeka, waxaan aaday store, waxaan soo iibsaday maxaa la yidhahdaa vegetables. Sidoo kalena waxaan ku soo darsaday vegetableska some fruits. Okay. Soo maaragtay qaybahan dhan waa qaybaha la isticmaali karo. Linking wordska, cause and effect, comparisons. Qaybahan dhan waa qaybaha ku anfacaya runtii oo ku siinaya qayb kasta oo casharkeena horeba aad maaragtay isii xoojinaya linkigan. Casharkan hore u soo qaadanay. Hadda tusaalahan waxaa la yidhi he loves reading books. Wuxuu jecel yahay akhrinta buugaagta, especially novels, gaar ahaan buugta sheekooyinka. For example, he recently finished Pride and Prejudice. Wuxuu dhameeyay buugga caanka ah ee la yidhaahdo Pride and Prejudice. Halkan marka waxaan doonayaa hal ujeedaan u imi halkan. Ujeedadaan u imi waxa weeyaan sheekadan horta aan idiin sheego. Sheekadan waxa weeye waxay dhacday 19kii meelahaas ay dhacday 19 something qarnigii 19aad ayay dhacday. Sheekadan waxa weeyaan waxaa jiray gabar la yiraahdo Elizabeth, waxaa la dhahaa Elizabeth Bennet baa la dhahaa. Nin la yiraahdo gabadha marka qoyska ka dhalatay waxay lahaayeen 5 gabdhood, waxay ahaayeen qoys tan yar ah. Meeshuna waxay ahayd Ingiriiska ayay ahayd saan qiyaasayo. Marka sheekadan qoyskan marka waxay rabeen gabdhahooda inay guursadaan dad maaragtay lacag haysta ayay rabeen. Waagaasna maaragtay lacagta aad baa sida hadda loo jecel yahay baa loo jeclaaday. Hadda laga sii jecel yahay laakiin waagaana
maaragtay saameynteedu markasta waa badnayd marka waxa dhacay si kooban haddaan soo koobo ninka gabadha la yidhaahdo Elizabeth waxa maaragtay ninkan bay maaragtay isbarteen waxaa la yidhahdaa ninkan Master Darcy baa la yidhaahdaa marka ninkani wuxuu ahaa nin isla weyn dadka isla weyn buu ahaayo dee maaragtay bilo ka dhacday gabadhan markii sheekooyinkaas looga sheekeeyey marka bride waa ninka ku saabsan yahay bride waxa weeye waxaa la yidhaahdaa qofka maaragtay negative-na waa loo isticmaali karaa positive-na waa loo isticmaali karaa positive waa qofka naftiisa ku kalsoon maaragtay maxaa la yidhaahdaa integritygiisa iyo waxaasna fiican yihiin sidoo kale negative-na waa loo isticmaali karaayo negative wuxuu noqonayaa qofka dadka iskala weyn aaminsan inuu dadka ka fiican yahay aaminsan dadka inuu ka khatarsan yahay ayaa loo isticmaali karaa prejudice-ka gabadhan markii intii looga sheego lagu yidhi ninkana waa ninka noocaas waa noocaas waa noocaas waa nin isla weyn waa nin dadka maaragtay aan maxaa la yidhaahdaa aada u tixgelin waxaa marka looga sheekeeyey gabadhan way ka booday marka macnaha way isku dhaceen markay ka booday waa dame ayaa waxa dhacday markay muddo kasoo wareegtay ayaa waxa looga sheekeeyey haddana ninkan sheekooyinkiisa waxay ogaatay factskii oo ninkan inuu nin naxariis badan yahay wax badan oo looga sheegay markii hore oo looga sheekeeyey inay maaragtay uu leeyahay qualities ka fiican waxa dhacay marka ugu dambeyntii marka way isguursadeen marka waxa la dhahaa waxay soo afjareen isaguna wuxuu soo afjaray baraydkii macnaha oo isla weynidii belada ahayd iyo waxaas maaragtay waxa weeye uu ka waantoobay iyaduna qofka prejudice waxa weeye qofka maxaa la yidhaahdaa inuu iska boodo uu qofka ku qiimeeyo wax muuqaalkiisa sida uu muuqdo physically ama uu ku qiimeeyo dacaayadaha dadku ka faafiyaanin uu ku qiimeeyo kadibna uu ku go'aan qaato isagoo wax facti ah aan haysan waa prejudice la yidhaahdaa marka waxaan ka rabaa muuqaalkan maadaama casharkan hadda labadan eray pride and prejudice af Soomaali waxa lagu yiraahdo labada eray hadda English waa labadaas waa inay sheegay sharaxaadooda waa inay siiyay pride negative na noqon kartaa positive na noqon kartaa negative haday noqoto waa qofku inuu dadka iskala weyn yahay positive haday noqotona qofku naftiisa inuu ku kalsoon yahay qof integritygiisa iyo maaragtay arrimahaas ay fiican yihiin uu yahay prejudice isagu markasta waa negative qofku waa inaad muuqaalkiisa physical appearance-giisa ku qiimeysid ama dacaayada lagaaga sheegay aad ku qiimeysid kadibna aad ku go'aan qaadatid maxaa lagu yiraahdaa marka af Soomaali soo raad intaas marka ku tahay challenges kooban casharkeena dhexdiisa ah marka haddaan u soo laabto qaybta formalka iyo informal linking wordska formalku waxa weeyaan academic rating ayaa aad loogu isticmaalaa more of baa ka mid ah formal linking wordska therefore baa ka mid ah nevertheless baa ka mid ah informal linking wordska waxa ka mid ah aan but so baa ka mid ah speakingka ayaana inta badan loo isticmaalo ama casual writingka waa qoraalka adiga saaxiibada isu direysaan oo kale oo maaragtay informalka ah IELTS writing task 2 formal ayaa inta badan la isticmaalaa speakingka isagoo iska flexible formalna waa la isticmaali karaa informalna waa la isticmaali karaa qaybta hadda aan nimaadno short versus long expressions short expressions inta badan also iyo but iyo so weeyaan marka linking wordskooda longiguna waa kuwa tusaale ahaan dhaadhe sida on the other hand dhanka kale marka laga fiiriyo as a result natiijada kasoo baxday in conclusion gabagabadii labadaba waxaa loo isticmaalaa si loo muujiyo variety kala duwanaanshaha waxyaabaha maaragtay sheekada markaa ka sheekeynaysid haddaan tusaale soo qaadano task 2 therefore the government should invest in education dowladda waa inay maalgeliso waxbarashada speakingka haddaan tusaale soo qaadano I was tired but I watched a movie waan daalanaa laakiin waxaan daawaday film marka halkan waxaan isticmaalay but oo ah speakingka ayaan isticmaalay waa shorty halkan waxaan isticmaalay therefore oo waxaan isticmaalay task 2 marka ugu dambeyntii waxa weeye gabagabadii
casharkan waxaa muhiimadiisu ahayd linking wordska inaad fahanto meelaha la dhigayo bilowga markuu yaalo emphasiskiisu inuu xoogan yahay komadu inay maaragtay ku xigto ay ka dambayso miralka markuu yaalo inay labada maaragtay jiho ka xigto sidoo kale degree of emphasiska inay ku kala duwan yihiin qaybta maaragtay ugu dambayso indiga in la dhigo isagu waa less common marka ugu dambeyntii waxaan ugu dhiirigelinayaa qaybta mother resourceska xog dheeri oo ka heleysaa linkiyada hadda aan soo sharaxnana waa ka heleysaa sidoo kale qaybta taskiga inaad ka shaqaysid oo maaragtay wixii bal inaad fahantay isku daydid ugu dambeyn marka casharkeenu intaas ku egyahay waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad maaragtay aad maaragtay linkiyadaas aad geshid oo maaragtay runtii xog dheeriya baad ka helaysaa oo casharkan ku saabsan tusaalayaal badan marka aad waa mahadsantihiin salaamu calaykum